maxaa loo dilay maxkamadda rabaa inaan u sheego maxaa loo dilay marxuumka waxaa loo dilay muxuu ilaahay kaaga abuuray qoys aad ka dhalatay waa wax cajiib dambi ma gelin gabadha kiisku ka bilaamay la sheegayo asaga ma aha qofka kaxaystay ama guursaday kaliya waxaa loo dilay oo kaliya maxaad qoyska hintira la yiraahdo oo beesha jaraweyne ka tirsan ilaahay kaaga dhaliyay waxaan codsanayaa in maadaama maxkamadda horteedan ka cadeynay dambigaas cidii geystay iyo wixii lagu geystay iyo sidii loo geystayba aan ka hor keenay cadeymo iyo marxaatiyaal ku filan maxkamadda horteeda aan keenay sida uu qabo qodobka iyo sida ay qabto shariicada islaamka in lagu qaado qisaasta ay mudan yihiin oo ah in lagu xukumo dil maxkamaddu ay maadsanta marxuumkii lagama haayo inuu dhahay aweesa laga yaabaa inuu maalin uu dhibaato ii geysto ama nafsadeyda uu salbado lagama haynin xataa marka taa waxa waaye waa coincident waa arin dhacday waaye go'aanka maxkamadda iska leh waxaan leenahay eedeysanayaashan labada kale maamooyinka in xurriyadoodii la siiyo maantana ay reerahoodii u tagaan si xur ah maxkamaddu waa mahadsan tahay un fat injusto arrin xaq darro ah ku dhacday maxaa xaq darro ka weyn gabadhaada in laga wato reerka ka watan ay ku imaan waayeen maxaa ka weyn wax ka weyn ma jirto arrinta halkaas qodobka ba maxkamadda hal aragto hala fiiriyo qodobka ba arrin cadaalad darro oo kugu dhacday adiga xanaaqna waa abuur kartaa maxkamaddu markii aragtay gabagabada difaaca eedeysanayaasha ee waafaqsan 119 xeerka habka ciqaabta waxaa maxkamadda u cadaatay kow eedeysane xuseen iidow maxamed labo asli maxamed cabdulle saddex aways iidow maxamed oo lagu soo eedeeyey in ay si toos ah uga qayb qaateen dhacdadaas uu u dhintay marxuum axmed dawlo ay mas'uul ka yihiin sidoo kale maxkamadda waxaa u cadaatay in eedeysanayaasha kale ah caasha iidow maxamed nasteexa ibraahim cabdulle cabdiraxmaan maxamed cali deeqow cali siyaad ayna soo gudbin xafiiska xeeladaha guud ee qaranka cadeymihii ku filnaa sidaa darteed maxkamadda gobolka banaadir waxa ay ku xukuntay kow xuseen iidow maxamed labo asli axmed cabdulle saddex aways iidow maxamed dil toogasho ah si waafaqsan qodobka 434 sidoo kale maxkamadda gobolka banaadir waxa ay xorriyadooda soo celisay caasha iidow maxamed nasteexa ibraahim cabdulle cabdiraxmaan maxamed cali iyo deeqow cali siyaad maxkamaddu way inoo xiran tahay xukunkan racfan ayaa ka furan